هو محاتيريا ماي ارتي مدي ميداي ساي ماهينو ورياض ريك لمان كاليان مرني ورياض هيا صوماليا مرق واد بعديده دنك لو كفي عنتان يا واد بحسنان يا دقني من نعبتاي دان داسي كبر دول قادن مايان دير مدو غميسيغا ديمشي ka doortaan waxba looma duur xulo arab dalal lama ogola dadka hadaad isleedahay way dareemo fududahay midka dabi ka dhigay diiradoodu qabataa wariyaha maalin walba damtiyo idirimtiyo lu weeriyo haliyeen ko dareen leen inka jirnay aan in faaliyaase warnimayo arbacadii u horeysay ee sanadka 2019 Nicholas Haysom ay galaafatay marka arbaco cid ay gasho waa garan tahay waa sidaad u tiriyaho waxa uu leelay Haysano ku hoogay hadal kowlahay waxa uu leelay Haysano ku hoogay hadal kowlahay yahu warninka Haysan la leeyahay wuxuu ka soo jeedaa baa la yiraahdaa cadaankii tirada yaraayo South Africa waa nimankii xukunka haystay midab kala sooca sameeyay marka wali ma fakarkii gumaysiga iyo midab kala sooc u aaminsan yahay warnimayo horta anigu xalay waraaqadii dawladdu soo saartay oo loo diray xogayaha guud ee qaramada midoobay waxaan u fahmay ninkaanu siyaasadiisu waa tii qarnigii 20aad nin siyaasadiisu qarniga 21aad la socoto noo soo dira warwaagi aan ku meel gaarka ku jirnay oo farmaajo oo ra'iisul wasaaraha ahay asaga iyo mahiigana la dhihi jiraa isku dhacay aakhirkii ra'iisul wasaare farmaajo ayay galaafatay marka Haysan ma wuxuu aaminsan yahay fakarkii mahiiga soo ma ogo in ku meel gaarkii laga baxay sharafka aan raadinayno kama raadinayno gumaysi iyo beesha caalamka sharafka aan raadinayno waxaan ka raadinaynaa madax banaanida iyo shacabka Soomaaliyeed waryaada nimayahow Nicholas Haysom markii Soomaaliya loo soo magacaabay ayaa miraayada ka jabtay marka hadda waxa loo gaday miraayada isku fiiriyo war waxaan dhihi lahaa hogaankii qarankeenu ninkii Haysan ahaayo shalay heesaha duubay xalay bay ka hadleen oo hanna dhaafadheen ma huleelay duqi waligood hawl qarameed hanqalkay ku ritaane waraadaha odagii Christmas Day inta dhaafay miyo hadan xilkiisii dhaaf war la yaabka sanadkan la bilowday waxa kamid ah qof bartay nursing ayaa raba dawladda inuu ku eedeeyo diblomaasiyad war Haysan soo wakiilkii qaramada midowga u fadhiyo Soomaaliya ma aha qaramada midowga soo Soomaalida taageeri jirtay goormaan ka maarana qaramada midowga anagu war dawladda Soomaaliya waxay tiri ambassador Haysan wadanka loogama baahna kamana shaqayn karo waa inuu ka baxa haday qaramada midowga aqbasho waxaan noocaad wadan madax bannaan nahay haday aqbali weydo inaan riyoonay ma idin la tahay warna miyaa dalaal iyo inay malaal malka dhoma war kuma ka fiirsataana waryaha waxaan weydiiyay hadda Haysan ale masaarkii la tagay kama qayb galay miya buda warkii ari ma aha booliska koonfur galbeed walba malsiyow adigana budkaanaan kugu nacay madaxa kaaga dhace kulluuyay warka isku sheegteen Soomaaliland aqbali mayso dhigna u dhigimayso wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya iyo Somaliland ayuu madax u ahaa marka kaligiina ma diidi kartaan annagu waan ogol lahay idin lamana ogin waxa sheegaysaan intuu shubaysaan marka ceesaantii madax shabaal ursatay malageedii baa galay baatiin ariya qowdaro waxa hore loo yiri shaydaankii baa la shakaalayaan maqalnay shartiisi baa la xijaabay baan maqalnay shuba hadda shuushow bax ayar bashuush baa idin ka maqan sharaabad joogto u noqoteen warnimayo lama dhama wali ma dhamaan miya wareeda mahiige iyo Haysan iyo Nicholas Haysom lagu mashquulinine baarlamaankii Puntland waxa la yiri hal gabar baa ku jirta inta kale waa rag dumarkii waxay leeyihiin marka annaga waana lagu xaqiray mana aqbalayno cadaaladna ma odayaashiina waxay yiraahdeen baarlamaankan beelo iyo qabiil baa lagu xulay oo lagu qaybsaday marka gabadhu waa qabiilkee mareerkay u dhaxdayba masreerkay ka dhalatayba ma naqaan bayraano horta nimayow gabadho qabiil ma leh waa Soomaali inta qabiil wax lagu qaybsanayana oon qof iyo ad la gaarin gabaru Soomaali iska ahaat warnimayow waa su'aal daweyno duwaaqayga miratay awal dumarka yaasiray daryeelkii carruurtii iyo ka bixiyay dadkii horta qabiil iyo qarannimada waa kala qiimo weyn gabdhuhuna qarannimada waa number 1 maxay qabiil ugu hinaasayaan ya ariya hadaad gabdhihii wan ka dhigtay ragana malaxaad ka dhigtay warnimayo horta waagi hore dhaqanka Soomaalida baabuur haday gabar kaligeedii soo raacdo ama meel lagu sheekaysanayo hal gabar soo fariisato dhagax
dhagax baa la ag dhigi jiray marka baarlamaanka Puntland gabadha kaligeed oo ku jirta dhagax ma la soo ag dhigaya waraadaya gabadha baarlamaanka Puntland kaligeed soo gashay dirac weeye waa laba xaniyood war bilaanto dhama dirac galadaana war kala nin hayte war jabhadda oo waxay tiri maanta wixii ka dambeeya dagaalamayno rayid baan nahay xisbi siyaasadeed ayaanu noqonaynaa marka xisbi siyaasadeed iyo qabiil sidee meel isula gelinayaan ilaa OLNF waa magac qabiile warnimada horta dawladda Kenya waxay tiri shabaab waa soo laynay hubkoodina waa soo qaadanay laakiin waraaqay soo bandhigeen wariye warkaada waan ku waali hay'adde goorma la waasho waraqa hub lagu daray waraaqooyinay qarxayaan baa dhici kartay ma ogtahay adal dawladdeedii Soomaaliland waxay ka maseertay isxilqaankii farmaajo marka arday reer Burca ayaa dugsi weyn isxilqaan ku dhisay warada hawlwadeennadii isxilqaan oo Maryan aadan u horeyso wuxuu siiyay ra'iisul wasaaruhu bilad sharaf waragaasima Ismaaciil bilada waa la siiyay aryaa isxilqaanka abwaanguura u horeeyay xabilad asagana loo sii waayay war maareeyaha tiyaatarka biladiis may baa inuu tiyaatarkaas dhismo faryadagana ka heesta war waxa bilada Muqdisho waa dhistay waa raadiyo kulmiye war biladaha la bixiyaa ku mashquulinine waxa bilada nooca wadanka inaad dhisnaa hadeer isxilqaama hanaga tago haysan awalba xoog noo haya indhaha holaxa ka galeen kalamaanay kashifaadiyo kaftan iyo hadal ha isku koobine kaltan weeye hawsha loo kacay kaalintaadii kamiinta ahayd kaalayoo qabo